السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت دعوانيسا إنت اللي جستها وأنا بريدينيا وحنا ما نتعرف نسوي نميد دور قضب وأنا دوني نلقى هذا الله كوه الرياء وحويه مضشوا موقف كلمة كائن كتير السياسي أي وضع يقوم تمارسه هل كذا بيجان تيار كرتير كبحث سير هو أركته إنه حروق قبضه وكوه الرياء وأنا كان ما تكحدثون هذا الليل سيد نوجنا هاي مربى مرحلة بالله مريا ما أنت واحد نمرنا مرحلة كالجورة ودق ولي به ما عمر في هراء وقتي سيد الماضي يمدن بقى نفشين الصباح وحى لبا أرمود ببركة سمعنا من توريال واللي بتشريتان كده شاد بدن كويارنا هي مستقبل كده طبيعي لبا ضاسين وحكينا يوم لبا ضام من اسم دليل أودود ما ملكه هو رسول ما هذا تاريخ ذوق هدو حمية هدو حوناشي بس برضه تصور معي وحبا أورد معي ساكا وحسيت هاي سؤال شوي تاجنت هاي قلنا صوص عطا iyo qolada joogta mid bay saameyn ku leedahay oo qoladaas soo socota sidii ugu wareejin lahayd nabadgeliyo weeyaan xilka u yaalayada annagu markaa waxaan aragnay laba shay in laba kaalmood u booqatahay kow kaalinta hore waxa weeye doorashada soo socota sidee bay nabad u dhacdaa ugu dhamaataa ilaahay mahadii afar doorasho horena soo qabanay afartii hore waynu ka badbaadnay doorashadii u dambeysay way ka dhib badnayd oo ka خسارة بدنيت كوي هره ويكدليل بدنيت دورشين كوي هره وسيد ريبورت كي قرين هيئته بدح بنانايا كورميركاها دورشيد سيد لو قبتي ويكليدتي سيدي بريغ هور لو قبتي وينو ognahayo dad baa ku dhintay hore oo cid ugu dhiman maanta waxaanu jeednaa qodobka koowaad waxa weeye doorashadaas sidee nabad inoogu dhamaan lahayd inoogu dhac lahayd كو مرك هورين تاسوا قضب كلام لبعضنا وحوي يسبدل كيماده إنه النقطة بدو حي لما أنت بدله والسماء بدله وحمر سحارات أنا لقوا سيس عنكرين مرك هذا يكتو ما ملكينا عدالة ديننا وحقبت كل الدولة ده بالشدة نستوى قيبسن تهاي لكن عود دين السياسي أي عود سياسي كصوب حي ليفتله مرك هذا حصلنا يكتو رجع بدو قليل مايان إلى دراسة سنة كلها وحنا نبغى مركها دراسة مركها ده عيسو إن السنة بدو كلها عضو ونبغى وعكرنا نبغى المراكي مثلا هذا بس لبضع قطب بحر تانو قانون مكان هذا إن نقول له كهراء سنة بدو كلها عضو وحنا نورم وقتي مرحلتين نبض حي إن عيد كستو أو نبض داسي أي خصيصة أو سامين كله أما وحيلي كتا أما وحكو طريق كتا توسكا أو الدولة دكوا كتاي أو حسبية دو ترتمي يلبا كويهين أو كوميشن سدح كويهاي أو قرصور أفر كويهاي أو عيدا مدى إيا قلنا نبض إلى ساعة كميت هاي لما أنتو بحالك أن لك الشبع إنه نبض أسي كشقينا أيان كورا كاري سوء لها dawladdaasi inay booreejiso ku shaqeyso sidii u wareejin lahayd nidaamkaasi oo nabad qaba sidii riyaal u wareejiyay inuu wareejiso cid oo horeysa ka taana waa iyaga cid ay tahay waxna yeeli karto ugu badan waxna ka dhimi kartaana ugu badan waa dawladda waan u tagaynaa haddii dawladda tahay haddii isbeddelka hor sheegay bedel waan u tagaynaa cid walba waxaanu leenahay waa nabadan ka wada shaqeyno ciddii nabad wadana ee walba waa kala shaqeynaa sidaa wadeed waxaan istisnoo kale arrimahaas loo galay in dooda la qabto oo dadka dooda loo qabto oo xisbiyada dooda loo qabto oo codkan dhiifta leh hebel baanka iyo heblaaya caynka yidhi lagaba yaabo inaanay murashaxiinta odhan dadku yidhaahdeen inay ka saaraan meesha iyagu intay wada hadlaan oo ay doodaan intay isu yimaadaan dawladda ay ka baxaan ujeedadeedu waxay markii hore tahay annagoo taa wadnaa waxaanu kula kulannay dariiqii qolo kaloo iyana tii wadda ووزارة التعليم السريع وأنا قاسمين هذا القرار نو يعني وإحنا شغالين برنامج عن كاسة وضع horta hawsha habeenkana dhawta dhacday mid cid gaar ah socotay ma yahayn umana jeedno
horena sidaanu ahayn baanu maantana ahaanayna xisbi kama mid madashu xisbi ka mid maaha xisbi aanu ka midnahay ma jiro waayo dhexdhexaad ma noqon karo haddaan doonayna mid kama noqon ma noqon karto madashu dhexdhexaad ma noqon karto hadday rabteen cid kama noqoto marka annaga wax noo qiimo ah in doorashadaasi nabad ku dhacdo kursiga qiimo noo laha ka helaya ma kala jeclin kii doona ha helo laakiin kii walba waxaanu ka rabnaa nabad inay ka rajaynayn nabad ku dhacdo qoladaasaan isragnay qoladaas waxaa noo sheegay barnaamijka inay hayaan annagoo qudhayadu miisaan badan siinin iyo daraasad badan siinin ayaanu malaa baahidan haysay aawadeed bay ahayd aqbalnay inaanu la qabno halkaa waxaa ka dhacay tabaabashaheedii in wax laga yaaba in midnimada ka soo baxo waxa laga yaaba dad inuu si kale u arko horta waxaan u sheegayaa halkaa wixii ka dhacay ciddii dhibsatay xaq baa u leedahay qofku xaq buu leeyahay in waxaa dhibsado iyo inaan dhibsanin ciddii dhibsatay oo ka raaligelinayna umaanaan jeedin inaanu cid ku samayno iyo inaanu cid ku jixino midna kumanaan talagelin hadday sidaa u muuqatay waxaan leeyahay cidday sidaa ula muuqatay raalli ahow mana aha ujeeddadiidu taa iminkana waxa weeye macalcuna soo bixi doone haddii aanu cid taageerinay iyo haddaanu cid riixidinina waanaynu isnaqaanaa baan u malaynaya murashaxiinta waxaan u malaynayaa inteeda halka fadhida inay aad isu yaqaanaan waxaan u malaynayaa taasina inay halkay tahay dibna waynu wada noolaan doonaa iyo berita wixii yimaadaa maalinkaas marka haddii eebba idmo saasnu taas u deenina marka waxaanu ugu tirin wasaaradda ciddii kasta saan hore u idhi ciddii kasteenu aragnay inay u jeedo inay nabad wax ku qabato in midhaha soo baxaya marka weliba wasaaradda waxaanu aragnay labadii arrimood bayna ka muuqdaan murashaxiinta la isu keenaa oo la dhex joogaa berigii jabhaddaanu ahayn baa marka la shirayo etoobiyaanku annagoo aad u qayrin oo buuqaya markay arkaan bay ciidamay soo odhan jireen waxay jireen maamulka bay isdilayaan markaanu ka baxnaa haddana annagoo is-shaxaadayno oo jaadka isu qaadayno wada qaadaynayno meel waxaa cunaya arki jireen dad xun jireen waa dadkan baxayay waxaanu doonaynaa in dhaqankeenna uu kiino SNM noqdo oo intaynu ishayno aynu doodno aynu isdhexinayno hadalka aad isugu dhufanno goob inagoo wada joogna marka dambe aynu bulshada u teginayna aynu inagoo nabad qabo doono marka waxaanu leenahay murashaxiinta iyo intaba waanu qaldami karaa biniaadam ku qaldama waa qaldami karaa wixii qalad ahay dhacay ama cid tirsatay sidaan hore uga bixin soo bixinayna waana taan sheegay macalcuna soo bixi doonaa waxaana inoo ballana waxaanu jecelnay hadday xisbiyadu kii doona qabto aba mucaarad ahaado muxaafid ahaado kii doona hadduu qabto ina dood baan qabanaya kaalaya oonu dadka u qabanaynaa bishart inay tahay meel loo siman yahay dadku u dhiman yahay waa laga yaabaa technicalitykan wax qaldamaano dee baqdad buu arkayay in kulmiya dadkii oo dhan soo wada kaxaystay dadkiisii keensay qaarkood u arkayay ayaa waa la arkay waa laga yaabaa inay u muuqato laakiin ma ahayn talagalkayga anaga marka taasi sidaan balsho buuxiya laakiin waxa ballankeenu yahay inaynu ku wada shaqeyno kow sidaynu nabad dadkeena u gaarsiin lahayn ee doorashadaas u dhacay maaha muhiim qofka kursiga helaa bal kursigu wuxuu inoo keenaya ha joogtee waxaynu haynay sidaynu inooga dumin intaynu hayno sidaynu inooga dumin inaynu fuga qabano ayaanu haddana ku dadaali doonaa aanu ku dadaalaynaa kuna boorinaynaa murashaxiinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayo horta waa mid iyada madashu de waa in ay ahayd dad waddanka kan halgankiisii iyo samayntiisiiba dadkii doorka weyn ku lahaa inay yihiin dadweynaha somaliland oo dhan muwaaqirayaan xurmana way ku leeyihiin waanay ku mahadsan yihiin annagu waddankana sidii un baanu heegan ugu nahay in horumar sii sameeyo isagoonu imika joogno arrintan imika aanu gallay axadoodahuna waxa weeyaan arrin waxtar u leh waddankii sidaa imika uu xasiili horta arrinta ugu weyn waxa weeyaan in doorashadu nabad ku dhacdo cabsi baa ayay inoo keenaysaa cabsi waa laga qabaa doorashadii imika ugu dambeysay afrika ka dhacday waa laba doorashay ahaayeenoo midna waa taa midna waxay ka dhashay afrikadan bari midna ta galbeed afrikadan bari ruwanda ka dhacdo ruwanda doorashadeed waxay noqotay in boqolkiiba sidii tii 990 ahayd ninkii meesha joogay boqolkiiba 8 uu helay
macnihii marka ay noqotay ninkii meesha joogaa qaatay Mauritania waxaa ka dhacday istiftaal oo dastuurkii loo sameynayo iyadana way qaadaceen qoladii mucaaridka ahayd waxay yidheen dee kolleyba waa lagu shubanayaa maxay nagu kalifayaa in aynu maaragtay aynu gallo labada dowladaha haystay baa labadaba gacanada ku hayo wax dhibaatay kama dhicin laakiin tan Kenya imika sideeda soo socda warwar weyn baa laga qabaa inagu markaa haddii aynu imika doonayno doorashadeenu in ay si wanaagsan u dhacdo waanu ka wada shaqeynaa sidii nabada noogu dhacay taasi waa kow laba agabyada la adeegsaday inuu doonayno dadka iyo inaynu isku xidho siyaasiyiinta oo ay noqotaan dad isku xidhan waxaa ka mid a doodaha dooduna waa ilaa diinteenay ku jirtaa mogtay oo maanta diinteena iyo caqiidadeena iyo dhaqankeena haddaad qur-aanka ku noqoto intaasoo meelood doodu ku socdaan baad ka hadlaysay magacada doodooda hadday jidaal iyo hadday tahay xiwaar ilaahay baa subxaana wa tacaala suurat alxujaraat ibliis la doodaya qaala yaa ibliisu maa laka an laa takuuna maca asaajidiin baa ilaahay ibliis ku leeyay ibliis buu fasaxay inuu rad u soo celiyo وكله قال لم أكن لأسجد لما خلقته بشرا خلقته من صلصال من حمأ مسنون أي سوء علينا إليك سوء علي مركا حواركو عدي حوار تاي إريق حوار كمالتي وتسورة الكهف كتشرتا فقال له صاحبي هو يحاوره يا واتكتشرتا وجادلهم بالتي هي أحسن مركا جدالك إيه حوارك با وحويا بل وحنوي هاي اللي نقول يرجليو مارت كو لبا ما كلا صعنا إسلام كي سياسة ما كلا صعنا وحبر الشدة سياسة ما كلا صعنا دقن كي سياسة إنه وحنا أمد وحدو دم أيين وح سكوا الحرم فرنشي جا يا كلا صار دينتي يسياسة دي marka dad baa waxay u fahamsiin siyaasadda yaan isdhexgelin mesela waxbarashada oo kale waxbarashadu waa siyaasad waxa siyaasadda kale waa maxay baa la weydiinaya waxbarashada siyaasadda kale waa la weydiinaya waa maxay ila ma siyaasadda maxaa qorshayaad kale taasina waxa weeyaan waa ta ku saabsan jawharka yaa qaban karadana oo dad badan is weydiiyeen yaa qaban kara doodahana doodu siyaabo badan baa loo qaban karaa doodaha imika inta badan aynu u baranay inagu waa markii inoogu horreysay inuu qabanay waanay inoo fiicantay inaynu qabanno sharaf iyo wanaag iyo milga waxaan hayna ka dheefi mayno waayo dadku markay doodaan ee la weydiiyo ninkan doonaya dadkan inuu u taliyo dadkiisii la hor keeno waxa uu yidhaahaa horta waxaa muuqanaysa ninkaa siyaasaadkiisi waxaa muuqanaysa ninkaa markuu hadlayo dee shaksiyadiisi waxaa muuqanaysa ninkaasi codkarnimadiisii waxaa muuqanaysa ninkaasi daacadnimadiisi iyo siduu hadalku leeyahay intuba way ka soo baxaysaa dadku uu qiimeynaya marka hadhowna waxay noqonaysaa waxa uu halkaa ka yidhaha ku ballan qaaday wax daba taagan oo la daba taagnaayo uu xijeejo marka taasi horta halku isagu kala hadlayo uu taageerayaashiisa iyo dadkii taageerayay in doodihii ay sidaa ay noqdaan oo faa'iido ka soo baxdo waa wax aynu aad ugu baahanay waana wax aanu anagu haddaanu wada lahaan sidaa xasib uu yidhahay tahay inaanu sii wadno oo la wado hase ahaatee waxaanu ku daraynaa waa inaanu u tagnaa ciddii waxaa ka mid a kitaab dhan baanu haynaayo sidii loo maamulayey madashii sidii loo maamulayey doodaha ayaanu halkan ku haynaa oo ay ka mid tahay in lala xidhiidho qoladii hore hadday wasaaraddu la xidhiidhay oo muran badani ka yimi agaasinka wasaaradda sare tan imika annagaa madal ahaan la xidhiidhayna qolooyinka kan murashaxiinta iyo axsaabtooda hadday raalli ka yihiin dhexdhexaadka iyagana waa dee qabanayna hadday ka noqon waayaan dee waa arrin kale weeye laakiin in ay tahay in lala xidhiidho oo la weydiiyo waxay ka mid tahay sida maaragtay loo qabanayo loo maamulaya bay ka mid tahay marka taasina taa weeyaan sideedabana dadka waxaa maaragtay imika aynu doonaynaa in aynu xilligan doorashada hadday tahay ololaa oo inoo hordhay iyo hadday tahay intan ololaa ka horeysaba in aada iyo aad maaragtay arrinka innagaa leh arrinka aynu ilaashano oo wixii hadallada hadhow wixii maaragtay waxtar dalka u noqonaya dhalinyara maaragtay dalka kan imika u badana dhalinyaradii in
la maarata arrinkiis wanaagsan loo gaadhsiiyo abaabulkoodii iyo shirarkoodii iyo waxoodii inay badsadaan in ay iyaga doodahoodii dadka loogu yeerayay iyo kuwaas oo dhan ay qayb wanaagsan ka qaataan ayaa iyaduna mid meesha ku jirtaa nabadgelyaduna maarata ay noqoto mid dhammaanteenba haddaynu nahay madal iyo haddaynu nahay axzaab iyo haddaynu nahay xukuumad iyo haddaynu nahay dadweyne iyo haddaynu nahay ganacsato intuba innaga idan inoo tahay inaynu nabadgelyada ilaalinaynu ka shaqayno. والسلام عليكم ورحمة الله. nabaduna way iska iman doontaa nabaduna way iska iman doontaa marka sidee doorashadaasi xor iyadoo xalaal ay u dhici lahayd waa waajib inoo wada saaran waa waajib saaran anagoo madasha waa waajib bulshadoo dhan saaran marka horta taanu doonayno inaynu anagu doorka iyaga ka ciyaarahay waa taa qodobka waa sidaasaan u sheegay ta kale aan doonayno ku celinayno waa qodobka Cabdisalaam markii ugu dambeeyay sheegay xalayto waxaan dhageystay xildhibaan qabilaan dhageystay qabiilo waa saaxiibkay waa raggaan ugu ixtiraam badanahay baarlamanka waa raggaan ugu ixtiraam badanahay waxaan ka yara dareemay xoogaa cabashaa ama waxaanu filaynin inay meeshii ka soo baxeen waan ka dareemay waxaan u sheegayaa isaga iyo ciddii kale dareentaaba aanu ugu ballan qaadaynaa ugu dhaaranaynaa inay madashu arrintaa dhexdhexaad ka tahay dee rag xoro baanu nahoo muwaadiniina baanu cid naga hor joogtaa inaanu xusbigaanu doonno gallo dee ma jirto yaa ii diidaya anigaan u diyaarahayn maanta inaan markaa sameeyo madashuna uma diyaaraha taana halkaasaan kaga hadhaya haddii wax farsamo ay xumaadeen waynu sixi doonaa waxaan kaloo anigu ku sii darayaa saddexdaa ninee tartamayahay waxaynu ku kala dooranaa oo qabiiladii ma jirto qabyaalad ku kala dooran mayno waayo labaduba waa dadkiiun waa niman Somaliland waa niman isku wada qabiilad ku kala dooran mayno maxaynu ku kala dooranaynaa waxaynu ku kala dooranaynaa waxay aaminsan yihiin iyo waxay dalka u qaban doonaan tii sidee baynu ku ogaanaynaa warqada ay noo soo qoraan iyo khudbada akhriyaan inuu taas inaafici mayso waxaynu u baahanay intay noo soo fadhiistaan su'aalo wax ku ool ah in la weydiiyo oo ay sharxaan oo lagu celceliyo oo tii ay diidaan dib loogu celiyo in barnaamijkoodii iyo fikradoodii halkaa ka soo baxday kii aynu markaa fikradiisa garanno baynu dooran doonaa laakiinse inaynu wax kale ku kala doorannahay waa xaaraan bay ila tahay marka waa loo baahan yahay dooda inay soo fadhiistaan waxaan idiin sheegayaa 60kii Mareykanka doorashadii Mareykanka waxa tartamayay nin Kennedy la yiraahdo iyo nin Nixon la yiraahdo muddadii hore oo waxa watay dooda ninkii Nixon loo jiray baa watay shacbiyadoo la isla helaya doodii markii la soo fadhiistay waxa kaga badiyay Kennedy baa kaga badiyay codkii waxa bedelay ninka Kennedy soo saaray waxay doodii la soo fadhiistay tii oo kala dhacday haddana 76kii ninka Ford la yiraahdo ee markaa madaxweynaha ka ahaa wuxuu Carter kaga badiyay uu ka dood wanaagsanaaday eriyo qalad oo aan meesha looga joogin buu Ford sheegay sidaas uu kaga helay marka dooda sidaas ee ninka musharaxa la weydiinayo su'aalo wuxuu yahay bay soo saartaa saddexda musharax midna yaani diidin xaq baynu ugu leenahay dimuqraadiyaday ku jirtaa in nimanka la soo taago oo sidii la weydiiyo waxa ay doonayaan la weydiiyo taana waynu samayn doonaa waxaan jecelahay saddexda xusbiba ku dhiirigelinaya wixii tan hore dhacay haddii qalad dhacayna sidaan sheegay waynu ku raaligelin doonaa inaynu halkaa ku dhoofino waxaa dambeeya doodaa dambe aynu wadno inay ka soo wada qayb galaan oo dadka wax u sheegaan dadka waxa runtu tahay u sheegaan sidaasaynu ku qiimeyn doonaa sidaasaynu ku kala dooran doonaa